waxaa saaka gebi ahaanba degmada Garada iyo nawaaxigeeda iyo tuulooyinka hoostagaba laga filiyay ololaha nadaafadda iyadoo maanta ahayd maalintii uu aastay wasiirka arrimaha gudaha Cali Waraac Cadeys ololaha nadaafadda ee laga filiyay degmada Garada ayaa saaka waxaa si weyn uga dhex muuqday ciidanka asluubta iyo ciidanka booliska iyo maamulka dawladda hoose iyagoo ugu horreyn halka ay hadallo kooban ka soo jeedin xogayaha fulinta dawladda hoose Ibrahim Ismaaciil Ogle iyo taliyaha ciidanka asluubta Dhamme Yuusuf Farre iyo maayirka degmada Garada Faarax Aadan Ciise hadaladooduna waxa kamid ah waxaan fariin uga dirayaa dhammaan dadweynaha reer Garada iyo deegaamada ku xeeranba iyadoo ay tahay xilli roobaadku uu soo dhow yahay in loo diyaar garoobo ama laga qayb qaato ololayaasha nadaafadaha magaalooyinka iyo xaafadaha iyo goobaha qashin qubka si aynu uga diyaar garoowno ama aynu uga hortagno inay nagu dhacaan inaga iyo bulshadeena aniga way fulinta dawladda hoose ee degmada Garada saaka waxaan qaadnay olole ballaaran oo nadaafadeed ololaha ballaaran oo ah mid guud ahaan dalka dalka Soomaaliya oo dhan ka soconaya sidaa daraadeed meel allaale meeshii qashin yar saaka waan gubnay maanta waxa weeyaan waa maalintii loo aasteeyay nadaafadda qaranka oo 7 Abriil halkan waxa goobta jooga ciidanka asluubta ee degmada Garada iyagoo kala qayb qaadanaya dadweynaha reer Garada nadaafadda guud ee qaranka gaar ahaan degmada Garada runtii waxa uu noo aasteeyay goobtii magaraysa ugu qashinka badnayd ayaa noo aasteeyay goobta tan oo goob nagu soo noqnoqoto oo dhowr jeer horena aan magaraysa qashinka ka ururinay runtii Ilaahay baa mahad leh arrinka nadaafadda waxa weeye waa iimaanka ka badweeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam saayidi marka in qof kasto oo magaraysa muwaadin magaraysa iska xil saaro waajib weeyaan hoostaga degmada Garada saaka si weyn looga filiyay ololaha nadaafadda waxa kamid ah gowsi weyne fadhiga carro guul balanbaal oo madar sayre TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland